عليه وصحبه أجمعين. أما بعد ما أنت وحنا نو شرفه ومارتي شرف نوعه إن وسيركي وحبرشة جمهورية السومالان ونلجوه لغاية يو قدوميها وحبرشة قبلها يا قاسميال فربنا وخير قرن كسعده إلهي دقمو وحال نيكا مهدين إلهي ابن آدم ما مهديو marka arinta waa ka mahadcelinaa maanta wasiirku wuxuu noo dhagaxdhigayaa dugsiga sare ee Cabdullaahi Ducaale ee Luqaya oo muddo badan aan maaragtay laba galaas oo qura lagu dhiganayay iyo maanta dhagaxii la noo dhigayaa waa ku faraxsanahay arinta alxamdulillaah rabbil caalamiin الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سعادة الوزير agaasimayaasha waxa gudoomiyaha waxbarashada gobolka maanta waxaad ku soo dhawaataan xaruntii degmada Luqaya ee laga maamulayay سعادة الوزير waxa way baahida waxbarashada ka jirta waxay neeshan qolada ku faradhoobnaa oo gudoomiyaha waxbarashada iyo macallimiintiina maartay warbixinteena siinaya anigu waxaan kaliyoon ka hadlayaa soo dhaweynta wasaaradda waxbarashada heer gobol iyo heer qaran oo leena xaruntii degmada ku soo dhawaada Allah ma hadle boorahan kaftan ku yar dare maalin hore wasiirku anagoo wasiilay mooyeen iyo gaarso garbadar wuxuu ka soo baxayay anagoo martaqaadkii neefka adhiga iyo xawaashkii dumarka u diro neefka ugu horeeyay la yar qaray iyo xalka garbada yar marintaas la kaftan markii dumarkii waa yar faataxeeya ku yar faataxeeya marad wasiirku inoo iman doonay oo markii hore karmarkii hore aad iyo aad baan سعادة الوزير ilaa xalay maanta kugu soo dhaweynaa xaruntii degmada Luqaya wax weyn waana farax gelisay maadaama aad noo dhigtay labadii fasal ee ka dhignaa dugsiga sare ka dhignaa iyo maaragtay xafiiskii gudoomiyaha waxbarashada degmada Luqaya aniga oday ahaan mahadnaqoon iyo bahdiina maanta waxaan ku suganahay degmada Luqaya waxaan xagan u joognaa in la dhagax dhigo laba fasal oo kamida dugsiga sare iyo isla markaana la dhagax dhigo xafiiska degmada oo aan hore u lahaan jirin oo imka la soo kordhinayo waxaana kamid tahay safarka aan kormeereynay baahiyaha ka jira si looga jawaabo degmadana labada imka baahiyaha ugu muhiimsan waxay ahaayeen labada fasal ee secondary-ga iyo xafiiska degmada waana ugu mahadcelinay heer haddaan gobolkii nahay wasiirka wasaaradda waxbarashada أحمد محمد يريا تورنو إن وباهدا وناك في يوم كتاجنيد عدنا وما سنتهاي وسير إلهينا خيرها كسيو إلهي بقى محضلة الحمد لله رب العالمين مرات واحد محضنا تدوينها تقبل اللوحية يمدح دودا يقضياشها مدح ديش قالها وحبرشة السيدة في عن نوجس ودويد تقبلن إسلام مركانا لوجا حال ورميين كستون xoog isu keenay aanay jirin haddana wixii kale ee dheeraad waraa aan isu daarsanay marka inta horumar baynu wadnaa waxaynu ka shaqeynaynaa waxbarashada fiinteeda iyo baahinteeda in Soomaaliland la gaarsiiyo marba intii taagteena marka maanta waxa aynu dhagax dhigaynaa dugsigii sare ee Luqaya ee degmada Luqaya ee xarunta degmada ku yaalay iyo xafiiskii degmada wixii kale waxa kale inuu maanta dhisi doonaa guddigii horumarinta waxbarashada degmada Luqaya oo ah in degmo waliba ay isku tashato wixii la qaban karayna la qabto laakiin aanay dadweynaha degmada iyo madaxda iyo ganacsataduna iyaguna ay qaybtooda ka qaataan horumarinta iyo toosinta iyo maamulka waxbarashada bismillaahir rahmaanir rahiim dugsigii sare ee Luqaya ayaynu dhagax dhigaynaa iyo xafiiskii degmada ilaahay mid khayr qaba oo caruurteenu ay nooga anfacaan oo caruur diinta iyo dalka iyo waalidkood iyo naftoodaba anfacda iyo degmada Luqaya gobolka awdalba ilaahay ka dhigo iyo Soomaaliland guud ahaan bismillaah